السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمرك لي موقع عصب ونكرر على قلنا هذي بوق أما عن خشاش عيو حاسي وجرو أو نصف هين عد كيجو ما دام أنا كدو إنه هل كان أول رجود بجري. أوكي أنا موقع كان واحد أو كوسا بسية هي أو نوجه ليا صدح ميلاد أو عد استورج كديان كرتو صدح ميلاد oo aad ka dhigan karto meel aad wax ku shubato ama fayliskaaga muuqaal sawir documenti wuxuu doonaba ahaado aad ku shuban karto si markaasi cloud ahaan ama aad hawada dhigato oo device-kaaga aanu ku jirin si aanu markaasi kaaga buuxsamo device-kaagu ama loo yaqaano cloud storage. haddaba saddex meelood baa jira oo mobile kasta oo markaasi Samsung ahaado ama noocyada kale Android ka ahaado iPhone ka ma hadlayo noocyadaas ay ku jiraan وجران storage ama cloud storage aad iyo aad markaasi u tira badan oo aad isticmaali karto aad u adeegsan karto waxyaabaha markaasi aad markaa storage ka dhiganayso ama aad u baahan tahay inaad meel aan device-kaaga hana dhigato maadaama ku buuxsamay device-kaagu. Okay saddex cloud storage ayaan halkan kugu siinayaa. saddexdan waxay kala yihiin OneDrive, Google Drive iyo Samsung Cloud. Samsung Cloud waxa iskala shirkadda Samsung ee mobilada markaas ugu badan soo sameeyay laga yaabo mobile Samsung leedahay inaad isticmaalayso. Google Drive waxa iskala Google ama shirkadda Google oo markasta aad website-keeda booqato ama barnaamijyada mobilka ku jira inta badan iskala ama operating system-ka ama Android-ka waxa loo yaqaano ay shirkadda iskala leedahay. sidoo kale OneDrive waxa iskala shirkadda Microsoft in badan oo maqashay oo markaas barnaamijyo aad iyo aad u tira badan iskala qaar mobilka ku shaqeeya iyo qaar computerka ku shaqeeya intaba iskala leedahay. Okay haddaba midka ugu horeeya inuu eegna markaasi oo ah Google Drive ama Google Storage inuu eegi doonaa. Google Storage marna waxa weeye in aad website-ka gasho dan aad halka markaas ka adeegsato cloud storage-kaagi marna application-kan caadiga ah Drive-ka aad soo dejisato oo adeegsato. haddaba waxaan ku horeynaynaa application-kan Drive-ka. Drive ama Google Drive marka uu kugu soo furmo kaliya waxaad u baahan tahay in aad Gmail-kaaga ku xidhato wax kale kaaga ma baahna. Gmail-kaaga marka aad ku xidhato Gmail-kaaga si sax ah markaas uu kugu samaysan yahay halkan saddexda dhibcood hadii aan taabto ama saddex reejimood halkan waxa iga soo baxaya 15 GB oo free in la siinayo marka ugu horeysaba. waxa aad ku kaydsan kartaa marka barnaamijyada ama adeegyada ama waxyaabaha aad rabto inaad kaydsato ama aad rabto inaad markaasi cloud storage ka dhigato sida sawirada, muuqaalada, maqalka, dokumentiyada ama faylalka markaasi ka buuxinayo storage-kaaga. haddaba sidii aad u dhigan lahayd hadii imika halka blast aan ku dhufto halkan waxa uu soo saarayaa inaan folder samaysto inaan wax soo upload gareeyo inaan wax scan gareeyo iyo qaybahan saddexdan oo ah Google Docs iyo Google Sheets iyo Google Slides oo markaas iyagu mowduucyo kala ah. Okay upload hadii aan ku dhufto waxa markaas uu igeenaya qaybtii recent-ga ama ahayd qaybtii markaas sawirada laga soo qaadanayay ama waxyaabaha aad rabto inaad soo upload gareyso ama waxyaabaha doonayso inaad soo upload gareyso aad halkan keenayso. halkan hadii aan soo qabto waa qaybtii recent-ga ama sawirada hadii aad halkan ku dhufato waxa uu ku soo saaraya images, videos, audio iyo waxyaabahaas oo dhan si aad markaa halkan ku soo upload gareyso. Okay hadda sawirkan aan soo saaraya sawirkaas aan ku dhufanaya dan halkan waa adiga arkaya sawirkii waa uploading ku sameynaya marka oo halkan soo galinaya xogabad marka yar sugi doonta. hadii aan halkan soo qabto halkan markaasi sawirkii waa kan sawir ama muuqaal ama wuxuu doonaba ahaado marka aad soo geliso hadii aad wifi isticmaalayso ama wireless isticmaalayso si automatically isku soo gelinaya. hadii aad data ama sim card data isticmaalaysana isaga ku oranaya uploading ku sameey marka si uu kugu soo galo ama sawirku xaggan kugu soo upload gareyso ama file-ka aad wada oo soo galo meesha maadaama uu marka data isticmaalayo si automatically uu u soo gelinayn Google Drive-ka. sidaas ay markaasi u adeegsan doontaa oo 15 GB ee free-ga lagu siiyay marka ay ka dhamaadaan waad iibsan kartaa oo shirkadda Google ayaad ka iibsan kartaa oo xagan markaan ku dhufto hadii aan halkan buy storage aan ku soo dhufto waxa uu soo saaraya halkan markaas balance ka yaala
ama storage-da la iibinayo. halkan 15 GB free yaala waxaad iibsan kartaa 100 GB 1 TB 2 TB 10 TB 20 TB 30 TB aad iibsan kartaa mid kastana qiimihiisu xagga hoose ayuu kaga qoran yahay. waxaa markaa ugu jaban 100 GB oo ah $2 per month ama bishii aad $2 bixiso. sidoo kale 1000 GB ama 1 TB waxaad bixinaysaa $10 bishii aad bixinaysaa. kuwa kalena qiimiyashooda xagga hoose ayaad kasii eegi doontaa markaasi. marka aad sawiradaada halkan saa ugu soo upload gareysato adiga arkaya sawirro kale inay meesha ku jiraan oo markaasi aan ku soo upload gareeyay kana hadda waa wada waa ka sawirkii soo saaray. halkaas markaa ku upload gareysan kartaa oo storage aad ka dhigan kartaa. okay haddaba ka labaad haddii aan eegno waxa aan soo qabanayaa Samsung Cloud. Samsung Cloud waxa weeye cloud storage marka aad dhigan karto faylashaada ama dokumentiyada waxyaabaha aad u baahan tahay in aad cloud storage ka dhigato oo device-kaaga aad ka saarto. Samsung Cloud waa sida Google Drive oo kale 15 GB free ayaa marka hore ay ku siinaysaa. sidoo kale OneDrive-ka iyo markaas Samsung Cloud waad isku xidhi kartaa. haddana Samsung Cloud waxa aan ka iibsaday 200 GB oo plan per month ama inaan bishii bixiyo $2 ayaan ka iibsaday oo markaasi an storage ka dhigto. dan markaan iibsaday 200 GB bishii ayaa ga dhamaatay lacagna ma bixin maadaama faylashaydii iyo waxyaabihii aan ku gurdo hortan ay ugu jiraan cloud-kaan iibsaday ama storage-kaan iibsaday. waxa markaasi adkaanaysa in balaniska ama wixii bishii aan iibsaday ay ga dhamaato dan laga xidho. saas darteed Samsung ma ay sameyn sidii oo agama xidhin cloud storage-keygii balse waxa ay sameysay OneDrive-kayga iyo markaasi Samsung Cloud ay isugu ka xidhay daatadii iyo waxyaabihii ugu jiray oo dhan OneDrive bay ugu wareejisay. dan balaankii waxa ay iga dhigtay free marka OneDrive ayuu wixii oo dhan ku wareejisay. hadda haddii aan taabto qaybtan halkan haddii aan taabto fileska si automatically ayuu OneDrive-ka igu soo saaraya. haddii aan fileska taabto waad iga arkaya Microsoft OneDrive markii uu soo saaray halkan pin baa igu xiran pinkaasaan ka furayaa. fingerprint baad ku xidhan kartaa sidoo kale pin baad ku xidhan kartaa fingerta markaan ka furo dan faylashii oo dhan halkan ay igu jiraan. faylashaydii oo dhan halkan ay igu jiraan. sidaas darteed Samsung Cloud way leedahay storage markaas aad iyo tiro badan sidii aan Google Drive ku sheegno kale balse waa balaanis oo waa markaas waad iibsanaysaa. markaad iibsatana inay daatadaadu ka xidhantaa iyo suurtagal haddii aadan OneDrive lahayn. marka OneDrive 15 GB oo kaliya ku haystay sidaas darteed 15 GB Samsung Cloud markay ga dhamaadeen waxa la igu wareejisay automatically OneDrive hadda waxaan ku haystaa waxa ii free 205 GB ayaan leeyahay. waxaan isticmaalay kaliya 25 GB inta kale oo dhan way banaan tahay oo adiga arkaya 12 kaliya ayaan isticmaalay. waana cloud storage aad iyo aad u badan oo markaasi waqti badan aniga iga bixsami doonan waana free waa premium marka oo $2 Samsung kaga iibsaday ay si automatically halkan igu soo wareejisay xogta iyo daatadii igu jirtay oo dhan dhamaanteed ay halkan igu soo wareejisay. marka saddexdaas isticmaali kartaa. Samsung Cloud-na waxay aad iyo aad markaasi ugu wanaagsan tahay waxa aad ku xidhi kartaa gallery-gaaga ama fileskaaga ayaad si automatically ugu xidhaysaa. marka faylasha ama sawir ama muuqaal wuxuu doonaa hada wixii soo galay device-kaaga si automatically ayuu qaadaysaa cloud storage-ka u dhigaysaa. hadda gallery-ga haddii aan ku dhufto maadaama uu halkan keenayo back baan odhanayaa qaybtan waan ka laabanayaa Samsung storage aan ku dhufto haddii aan qaybtan setting ku dhufto halkan waxa uu soo saarayaa in 6000 oo photos iyo markaasi 499 video markaasi upload gareeyay markii ugu dambeysay oo 18 GB ay isticmaaleen 6000 oo sawir iyo 499 muuqaal ayuu markii ugu dambeysay iyagu upload gareeyay oo sense dheer marka waxa uu ku upload gareynayaa OneDrive waana si automatically weeyaan. marka halkan haddii aan ku dhufto imika haddii aan tago qaybtan haddii aan tago albums science ama folderada ama albumada gallery-ga aan doonayo inaan si automatically upload gareeyo halkan aan ka dooranaya waxaas oo dhanba si automatically ayay u upload gareysmayaan oo ay cloud storage-ka u dhigmayaan adigoon adigu dhigin. waad fahantaan filaya hadda. marka
OneDrive iyo Google Drive iyo Samsung Cloud saddexdaba waad adeegsan kartaa oo mobilkaaga ay ku jiraan. Samsung Cloud waxa aad u isticmaali kartaa Samsung account-kaaga ama markaasi maaha Gmail-ka caadiga ah oo markaa waxa aad ku xidhanaysaa Samsung account setting haddii aad timaado qaybtan accounts-ka timaado accounts-ka ku dhufato halkan waxa kaaga soo baxaya Samsung account ayaa kaaga soo baxaya Samsung account halkan kaaga soo baxaya wadiga arkaya Samsung account kaasad ku xidhanaysaa Samsung Cloud sidaas ay markaas kugu xidhmaya. sidoo kale OneDrive waxaad ku xidhanaysaa Hotmail ama Outlook labadaba kii aad samaysato ayaad ku xidhanaysaa oo ku shaqeynaya shirkadda Microsoft leedahay. marka Google Drive-kana Gmail-kaaga caadiga ah ee Google leeyahay ayaad ku xidhanaysaa. marka saddexdaba saas ay kugu shaqeynayaan. storage-kuna waxa uu markaas kugu shaqeynaya hadba intii aad isticmaasho 15 GB free-ga balaanka ama bisha ugu horeysa hadii aad ka buuxsanto waxaad iibsan kartaa GB badan ay iibsan kartaa oo markaas beermont aad bixinayso lacag bisha lacag bixinayso. marka wax walba waa dhigan kartaa wixii device-ka ka buuxin lahaa mobilka ka buuxin lahaa oo dhan ayaad xaggaas ka wareejinaysaa dan free buu ka ahaanaya mobilkaagu kaamana cuslaanayo. saddexdaas isticmaali kartaa waana saddex easy oo markaas mobil kasta ugu jira oo Android ah. way jiraan cloud storage kale oo aad iyo aad markaasi u tira badan oo aad isticmaali karto sida maxaan ku dhahdaayay Mediafire Mega iyo qaar kale fara badan aad isticmaali karto balse laakiin saddexdan waxa weeyaan waa current weeyaan oo mobilka la socdaan maaha qaar markaasi aad meel kale u doonanayso. waana shirkada markaasi de mobilkaaga ku dhex shaqeynaya oo damaanad leh oo markaasi aad isku halayn karto. saddexda cloud storage ayaad isticmaali kartaa marka oo Samsung Cloud hadii uu ka buuxsamo si automatically ayuu OneDrive-ka kugu wareejinaya waa hadii aad OneDrive leedahay marka hore balse laakiin hadii aadan OneDrive lahayn waa uu ka xanibnaanaya inta aad samaysanayso kan kale aad OneDrive samaysanayso. Google Drive-kana 15 GB ugu horeeya hadii ay ka dhamaadaan waad iibsan kartaa iyagana sidoo kale ama Gmail cusub inta samaysato ayada 15 kala fiiriya aad isticmaali kartaa. OneDrive-kana isagana sidaas si la mid ah imika 200 GB free-ga ayaaniga wixii aan rabo oo dhan ayaan ku guraya oo isaga buuxinaya dan device-kaygu free buu yahaanaya igamana buuxsamayo. saasan markaasi u adeegsan kartaa waana saddexda cloud storage ugu wanaagsan aad mobile iyo computeran intaba aad u adeegsan karto. waan kaaga mahad celinaya daawashadada tan iyo muuqaalka dambe intaan sugu iman doono nabadgelyo.